aduu xafiiskayga uu soo mariyay halkana kula kulmay masiibo dabiici oo dab qabsaday guriga ku yaala Gabiley oo xukuumadda ku dhaleecay inuu dibdemis laanta magaalada ka jirta halkan waxa yaala madaxweyne dibdemis leeyahay waxa la siiyay $50 oo aan ilaa iyo hadda aan wuxuu ka qabtay gobolka jirin dab baa saa qabsaday xoog leh oo gurmad la'aani ay heshay taasi masiibooyinka dhacaya ee dabiiciga ah xukuumaddu inay ka gaashaantaan bay ahayd dadweynaha reer Gabiley iyo gobolkuba iyaguna inay wixii imika ka dambeeya aynu iskaashi ka yeelano takala waxa wali hadda saldhig ku xiran jeelka Gabiley wariyaashi Home Cable TV iyo Somalisat xukuumadda mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka codsanayno in la soo daayo xoriyada qowlka oo loo daayo saxafiyiinta واتي شرط ولا صحفيين تتكعب الإنسان حريتان كذا هاو كلمية وقبوا قبلنا وقتي حكومة الدائرية عليه ما أنت واحد مودع هي هنا نروح لوريا هي ذولا كنادك وشرط وراها ولكن تشتو وريهم كيبله وريا كلا أصلا نروح لأي ساحل تاس واحد موجود ساو ما نعرف كل يصير عيو حكمكم وعسيتي جيتها أم باو شارك قبصدا ذاتك صحفيين تا وحكالوت ku arkaysa maamulka si dhacaya dumar baa rag u jawaaba xalay xukuumadda dumarka guryaha noogu daaya mujaahidiinta ay dumarka afragaadinayaan iyo xildhibaanada ay u soo fadhiisayaan TV-ga xalay aray wax xildhibaan kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dumar baa u jawaabay cid walba nin baa jawaabaya waxaan jecelahay dumarka inay guryaha ku deysaan waxaan ku soo dhaweynayaa san kale oo sugan laba kalmood oo dana bismillaahir rahmaanir rahiim horta xaqiiqi maanta anigu dee marka hore horta waxaa soo dhaweynayaa musharaxa madaxweynenimada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid ee Somaliland Cabdirashiid Xabsi Mataan ayaa soo dhaweynayaa ilaahayna waxaan uga rajaynayaa in xisbiga iyo isaga iyo murashaxa madaxweynuhu intuba ay guuleystaan intaa waxaan ku dari lahaa dawladdii iyo xukuumaddii kulmiye anigu maanta wax kale oo ku macneeyo ma garanayo waa haruur badani dhulkeennan ka baxay oo haruurka cidi iibsan weyday oo cid waxbaba ku fali weyday haruurkii la jeclaa ayaa hees hawleedda haruurka dee waadooda garanaysaana waxaa lagu tumay lagunac baa lagu tumay waxaan leeyahay anu xaalka xukuumadda maanta dalka ka jirta arrinkeedu wuxuu ku koobmayaa lagunac markaad eegto saxaafadda xorriyatul qowlkii markay kooxda xukunka haysataa maanta ay ku jireen xilligii mucaaridka ay ahaayeen waxay ku hadli jireen waynu wada garanaynaayo way wada duuban yihiin oo waynu wada ognahay markaad ka soo bilowda maanta maxay hayto wargeyskii hubaan ee ay soo maxay hayto aad ku xigsiiso wargeyskii kale ee isnahaad ee inamada maanta halkaa ku xidhan ee saxaafadda ka tirsan ee sabab alla sabab loo xidhay aan la garanay ead ku darto inanta xalayto lagu xidhay garada iyadoo hawsheedii gudanaysa waxaan leenahay dhammaan dadka saxaafadda ah ee u xidhan sida aan sharciga waafaqsanayn anigu waxaan leeyahay ha la sii daayo xorriyadoodana degdeg ha loogu soo celiyo kolley murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ayaa iga damayn doonaa anigu intaas maan laha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Cabdirashiid Xasan Axmed Cabdi Cabdirashiid Xasan Mataan in badan baa laga hadlay saxaafadda iyo xukuumadda iyahaas anu waxaan la hadlayaa dadweynaha ku nool gobolka Gabiley oran maayo degmada Gabiley sida ku xusan waraaqaha ku-meel gaarka ee kaarka diiwaangelinta lagu sii sugayay ee ka bilaabmay Gabiley sabtidii waxaa ku qoran inaanu ka mid nahay gobolka Maroodijeex degmana nahay hore noogu mid baynu ahayn
maanta haddaynu ka mid noqonana kama xumin ummadda reer Gabiley waxaan leeyahay waryaan manaam laydinka sheekeen manaam iyo riyo waa manaam wax gobol la yidhaha oo jira ma jiro dad baa laynoo shaqo keenay oo waxaynu la mid noqonnay dowladihii khaliijkee saliidda ah sida imaaraadka cumaan kuwait baxrayn qatar xafiisyada ku shaqeeya gobolnimada ee bare saabku kow yahay ayaa ka mid a bal wax isweydiiya oo hoos u eega oo fahamkii noo furnaado xukuumaddana waxaan leeyahay gobol degmo caalamka meella kama jiro gobolkan waxaa ku dhawaaqay xukuumaddii ka horreysay waxaa ku dhawaaqay madaxweyne daahir riyaale kacayn adigoo mucaaridana halkaa khayryada Gabiley waxaad kaga khudbadaysay adigoo guddoomiyaha kulmiye adeed oo mucaarida maanta laga bilaabo inaad u aqoonsan tahay gobol maantood kursigii ku fadhiyo dalka bariisdan ka tahay oo madax meel la taabto ka saraysaa ma jirteen aad madaxweynihii dalka tahayna kii daahir riyaale ku dhawaaqay ayaanad ictiraafsanayn madaxweyne waxaan ku leeyahay dadku caamiye maaha ma indhalaa oo la soo jeeda intaad garanaysa ka badan boo la garanaya ummadda waxaad u caddaysaa Gabiley gobol iyo degmo kay tahay wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi